عليكم ورحمة الله وبركاته. maamul alaabtii baa la keenay hadda la soo wacay marka waxaa la leeyahay inay timaado ay la aragto صاحب دلب يمد نيو إن شاء الله ودي معنا دلب بس لو ضفيرنا تذكر نيو وارن مهمة جرتي وأنروينا كلا الصومال. maanta hawsha iska badan ma garatay marka waxa sameeysaa biri hadii aan ka dhigano ka okay ay soo gudub saaxib. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ما شاء الله. يورن. هاي سلام الحمد لله يورن. برواق والله لا ما soo dhawo maxay saa. وفي عنا عاد وفي عنا شقدنا ده هدا كسر واحد وقتي بس كير ما قرأت صح. علابين واي ما أنا وقت تري ما أنتي قريب بكوها يا أنا علابتي بتمية وتكوسه واعي مركا وكان هذا جان سالم horsaniyo horta ayaantii wada habeen maalintii isla hadlaynay oo arrin ku sheegay صح arrinkii bari horta caaw kala hadlo horta maadaama fursadna ii soo heshay horta aad baa kaaga mahadcelinayaa ما قرأت haddana maxaa cabaysaa lagu keenaa هذا ربي بتذكر ما مولى وما سنتهي waxaa rabay mataqaanaa arrinkii maalindhooda aan ku yeeraayay inaan hadda kala hadlo maadaama aad waqtigaaga ay soo hortay aad timid waa ku mahadsan tahay marka niyo how arrinkana waxa weeye mataqaanaa maalindhooda taa awood inaan meeshii yani shir u aaday meeshii shir ayna u aado taa awood waa ku sheegayay ما قرأت maalinta marka meesha shirka aaday waxaa igu dhacday arrin niyo aanan filanayn baa igu dhacay oo iga hor yimid صح arrinkaasna waxaa weeye niyo meeshii markaasaa u galay waxaa arkay qof meesha joogto soora gelaysa meesha ku dhex arkay qofti niyo waa ka helay ما قرأت marka niyo qoftaas baa dhowrkii habeen u dambeysayna qoftaan niyadeeda kusoo laalaabanaysay shirkii markaan soo dhameeyey oo raggii lasoo kulmay oo lasoo hadlay shirkii soo dhameeyeyna qoftii waa usoo laabtay qoftii waana waayay niyo qoftaas aaraa marka arrinkeeda inaan kala hadlo waa maalmahana shaqadan waa igu badneed iyadana waan ka murugoonayo waxyaaba badan baa iskugu darsoon arrinkaas aaraa niyo inaan kala hadlo saaxiib aad iyo aad maamul horta waa ku mahadsan tahay aad baa ugu mahadsan tahay sida ay soo dhaweysay mideeda kalena dee dunidan sideedaba waa iska mashaakil badan tahay sax waxa xal lahayn adduunka ma jiraan marka insha allah waa xalinaynaa sida ugu dhowday haddii aad garanayso horta waa dee waa kaba fududba haddii aanan garanayn laakiin raadin iyo haddii aan garno ilaahayna noo fududeeya dee waxa rag u dhaqaaqeen rabbina ogol yahay dee sida lagu helo waa fudud yihiin ma garata marka insha allah haddaan iska kaashano in ay noo hagaagi doontaa umaleynaya ma intaa kugu yaro maaragtay xoogaa yar fanna waa iska tahay oo maaqaan bulshaabina waa tahay صح marka arrinkaasna inaan kula wadaago waa rabay صح oo maadaama aadna yani dhankii bulshada iyo ku dhex jirto suuqaas aad joogto صح markii niyo arrinkaasna saaxiib waa kuu sheegi lahaa arrinkaas xoogaa anuu fikirku igu badiyey marka niyo horta wixii mataqaanaa dhacayay wixii soo korraaya ilaahay baa og ilaahay baa marka wixii iska kaashaday inay khayr ku jiraa suma ogid gacmahooda jig baa ku gooyaan laakiin maamul waxaa ku weydiinaya adiga mala hadashay gabadha mise aragti unba may waqtiga ii saaciday waa inaan la hadlo waan jeclaa inaan la hadlo markii dambe soo laabtay waxay fiicnaan lahayd wanaaga qofka waxaa laga arki karaa wejiga horeeta ma garatay marka ilama ahaan hataa haddii aynu ku rabin waa ku qancin laheedo xitaa number iyo wax dee kuu fududeeya bay kuu sameyn lahayd marka haddii aadan la hadlinna dee insha allah waa noo fududaanaysaa de wax adag noqonayso insha allah maadaama dee waqtigii hore aana joogin oo hadda social media iska maraya adduunka oo dee dadkiiba sidai isku heli lahaayeen ay fududahay niyo arrinka waasaa u sheegtay boontigana adaa wax leelayso maaha markii boontigana waa sidaas u sheegtay marka saaxib horta waxaana kugu yeerto waxay ahayd aqligaas baa kugu yeertay nin caqli badan inaad tahay waa waxay yani aqli badnaantaada waxay gaarsiisan tahay akaala tishto waxyaalaha aniga khaaska ii ah maasha allah allah kuu siyaadiyo marka saaxiib arrinkaas horta waa rabay marka arrin kalena waa jiray oo maalintii igala hadlaysay marka arrinkaas waa rabay hadda inay igala hadasho hadda oo maadaama firaaqa wada hayno hadda arrimnaa xalino maamul horta aad baa u mahadsan tahay sida ay iga soo dhaweysay waana ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol arrinkii kale oo aan kuu sheegay wuxuu ahaa maalintii aan kusoo wacay baa waxaa dhacday adeegii aad dalabtay baa wuxuu noo yimi abaara laba saacyo noo yimi marka isla markii dee waxaa ficnaan lahayd qofka maamulaha meeshanka inuu ogaado waayo dee wixii adaa sida oo la xisaabtantay ganacsatadii sida oo la xisaabtantay qeybtaa ku lahayd wixii adaa garanayso mogid marka in aan noo timaada jeclaysanay laakiin waa dhici weydo nin mushaakil ku furan yahay buuqna ku furan yahay may maalinta horta isoo weceysay maalintana shir baa ku jiray arrinkaasna niho waa isku waday
marka waan jeclaa inaan idin imaado laakiin waqtiga ay saamixi waayo oo waqtiga ayuu wala socotaa marka niyahow arrinkaasna ma aragtay horta waan fiirinaya arrinkan dalabka horta wadaad dalbay waan u yimaado waan ii sheegtay marka arrinkan dalabka waa wacay gaarigii yarkii waa u diraysaa oo soo qaadaya arigii keenaya meesha keenaya yarkii macmiilka noohaa soo qaadi jira wax isaga keenaya lacagtiisana dee adaa u siinayo somaha markaa meesha keento anaa idin imaanayo maalinta la fiirinayo maalinta noqoto anaa idin imaanayo sida u dhaqsiyaha badan waxaan jeclahay inaad firaaqas yeesho idin imaado oo idin soo gaaro inta kalena dee adaa ku filan somaha anaa ku filan markii adaa kugu daayo somaha markii la keenana waxaan rabnay dee alaab deg deg sidii noola ka iibsado waxaan rabnay dee websitekiina inaan hore ka gelina ma garatay marka insha allah adigu si deg deg siiya adigu inaad noogu timaado waa jeclaan ha may dee arrinka adigu beri ama saa dambo waxa laga yaabaa adigu maalmahaas inaa maalmaha u dhaqsiyaha badan inaad soo gaaraa laga yaabaa waayo hadda aan maalmahan waqti yar inaad soo maro marka adigu dhowr waxyaalood baa leeyahay hawlihi waa igu bad waa la socotaa adigu mataqaana meeshana dee nin iska ganacsadaa waa la socotaa hawlihiisu iska badan yihiin markii saaxiib waa idin soo gaarayaa si u dhaqsiyaha badan adigna hadda waxaan umaleynaya inaad dahday oo yani xafadii kasi dahday insha allah waa maasanta insha allah okay ilaahay ha ku nabadgeysa haddaa rabtana gaariga yarka waa sii raaci kartaa xeega dhex kartaa may caadi waa wataa gaari waa wataa miya okay haye وعليكم السلام معمل سو دواad maxaad doonaysaan Seedwanka boo soo qabo. eteedwan asmiya mise eteedwan kaliya mobilku waa kan tayadiisu waa sareysa laakiin muhiimaddu waa inuu adigu cajabiyo ma garatay muhiimaddu waa inuu adigu cajabiyo qiimo ku kala tegmayno ma garatan laakiin waa in idinka raali geliyo carruurduna macnaha in raali geliso discounti wax walba lagu sameynaya laakiin marka hore waa mobilka inaad ka heshaan akoonku waa kaa wala halka ku qoran waa in ka hayaa ma garatan mobilka waa kan bacda in ku ridayso alla hooya wax ka gedin gedinaysa معمل ده سيدان نيو ناجين نو ناجي وحسين معاميش يعني وحسين ده كان نوصل خير إن شاء الله halo saaxiib oran niyaho waa fiicanahay wax ku yiri mataqaanaa niyaho waa arrin degdeg ah igu soo kordhay markii saaxiib waxaa rabay inaan kula hadlo saacadana habeen wada waxaa filaya inaan shaqada kasoo rabaxday okay kaba sii fiican badii haddii saa tahay xaafadda igu soo marmar okay haya soo dheeray haya hayowe soo gal furan yahay de okay soo gal السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله ما شاء الله والله saaxiib soo dhow axmed warta saaxiib waa ku mahadsan tahay maadaama yani qiimayso iyo waqtigaaga ay soo hortay waana ka xumaaniyo xilli rabaxaad inaan kugu yeero markii arrin aan ka fursan waayey baan kugu yeeray saaxiib markii arrin hadda ka hor yani ogeed inaan kaala hadlayo haween oo ahaa gabadhii aan kusoo arkayay meesha صح baaniho waxaa dhacday maalin dhaweyn hataa alaabta fiirinayna wada yimid qoftii labadii gabdhood meesha joogay markaa soo galaayay inaan xasuusato ma aqaanay qoftii sheelada qabtay iyo qoftii xijaabta qabtay waa xasuustaa u malinaya oo taleefanka kaa iibsanayay عادي يعني qoftii xijaabka qabtay waa qoftaa kuu sheegaya inayahow marka waxaan filayaa labadaas gabdhood inaad taqaan waa garanaya horta mid baa macmiil ah walow aan aqoon saa'id oo caadi aan isku aqoon laakiin mid baa macmiil mid kamid ah macmiil ah mid kale laakiin qoftaa leedahay xijaab bay qabtay
صح way ugu cusub tahay qofta sheelada aad taqaanaa miya haa okay maya dhib male taas waa fududahay marba haddaa iyaga taqaan soo maaha sax okay ma dhowr horoo jeer ba idin yimaadeen mase maalintaas u horeysay wallahi macmiil bay tahay gabadhan gabadha sheelada qabtay mar ay dad ii keentay mar ay iyadu ii timaadaba laakiin gabadhi kale ma garanayo wejigeeda way igu cusbaan maalintaas kugu horeysay miya haa iyo waaba qoftaa kuu sheegaya dee qoftaas weeye qofta ugu cusub weeye haa qoftaas weeye dee iyada naftirkeedu ma dheero de qofka aan garanayo macmiisheeda iyadu ka mid noqotay de iyada naftirkeedu ma dheero sida lagu soo xerigeliyo de waa ila fududahay waxaa u maraynaa gabadha saaxiibteeda oo yani weydiinaysaa niyo horta waa fikrad fiican horta waxa kugu jeclaaya fikradaha wey maasha allah marka niyahow arrinkaas baa xarib inaa ku dhaqaaqo sida ugu dhaqsiya badan niyahow anigu arrinkaas baa saaxib maskaxda iga geli way shaqooyinkayga xataa waxay gaarin heeraa ka nusqaamo sax shalay u dambeysay hurdada ku daahayo waxaa dhacday inuu shir idhaafo oo iyada saa uga fekerayay waa shir idhaafiniyo maadaama iyada meesha kusoo arkay arrinka waa soo dhawaaday waa isleeyahay waa arrinka ilaahay waa noo fududay niyahow wixii marka qayb loola doonayo waa noocaas oo kale suma aad iyo aad marka saaxiib arrinka waa sidaas aan kugu sheegay marka qoftaasaa la hadlaysaa dee waa isoo waxaa leedahay saaxiibteeda dadtaa iisoo xirgeli baa leedahay saasa jecla horta wax walba waa fudud yihiin waayo maadaama aad tiri dee qof macmiilki ah dee meeshana wax naga iibsaday qofki isgaranayaan haddii aad tiraahdo me waaba ka fududaatay arrinka dee kaba soo qaad hadda in maalin dhaweyd markaa meesha ku arkay aniga horta waa farxay oo maasha allah aad iyo aad oo maadaama mar labaad qofka arkay waxaa niyeystay inaan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba arki karo arki karto haa oo aan la kulmi karo yani qoftaas iisoo dhowdahay waana suu qalbigayga ii sheegay aniga marka niyahow arrinka waa sidaas marka saaxa noo ahaado dee adna waa kaasoo wardoonaya maadaama marba haddaa meesha gabadha ku arkay meesha kama fogaanaya dee aageyga noqonaysaa usoo aag haye niyahow waxaa kaa rabaa arrinkaas sida ugu dhaqsiya badanaa u gasho saaxib oo dee adigu beri waa ku imaanaya beri waa ina jawaab yani waafi aan kugu imaado beri meesha kugu imaanaya haye insha allah shirka lahaa xataa waa baajinaya arrintaa darteed baa u baajinaya oo beri mise beri dambe beri ama saa dambe may beri waa imaanaya insha allah shirka insha waa allah baajinaya